قاعدين سلامة يا أصحاب دقالق أميالك سجوكتان سولو هذا. Just because anything can now be delivered with Uber Eats does not mean you can eat anything. So stop thinking that not food is food. Got it? waxaan idinku bilaabi doonaa hees hadduu ilaa yira barnaamijka aad baan idiin salaamaya soo dhawaada. Food. hees xabta shiiqa gacaliyo xidid aan guyal badan goob isugu iman kulamhadii goortan kulankood kulanka goortan kulankood gacaliyo xidid aan guyal badan goob isugu iman kulamhadii goortan kulankood kulanka goortan kulankood Solio kurti aymed geesi tukaraqe gurigiisiyo gaygiibi gurigiisiyo maashaAllah wada wada Garat solio kurti aymed geesi tukaraqe gurigiisiyo gaygiibi gurigiisiyo Obey abdi xakiin xataa sheeqa Obey Obey gees ilaa ka gees kacayo Obey gacaliyo xigal kubay Obey gacaliyo gogol sharaflay Obey gaab kugu dhigay gacali Obey abdi xakiin xataa shiiqa Obey daynile kubtii muqdisha Obey gees ilaa ka gees kacayo Obey gacaliyo xigal kubay Obey gacaliyo gogol sharaflay Obey gaab kugu dhigay gacali بسم الله الرحمن الرحيم وقتك aad igu yar banaankan socdaa insha Allah haddaan soo galay haddana dib baan u noqonayaa waa idin bilaabaya barnaamijka bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd inta magacayga muuqaygu taqaanaba shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogtaan waa walaalkeen Cabdixakiin Cusmaan Nuur oo ku magac Sheekh Soomaali ee ka xirta Sheekha Minneapolis Minnesota inta in naciyo inta jecel inta taageersan inta iga soo horjeeda dhamaantiin waxaan idinku wada salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaa jirtay xog rasmi ah oo muhiim ah oo dadka Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota degan dhagta u taagan tahay badidooda ayaan rabay inaan idin la wadaago sida aad la socotaan waxaa jiray kiiskii raashinkii lacagtii la dhacay ee lagu soo eedeeyay dad badan oo Soomaaliyeed kiiska indictment inay ku sameeyaan FBI-du waxa ay ahayd maalintii Khamiista ahayd oo bisha June ay ahayd 9 indictment-kaasi waxa uu ahaa in dadkii la judge gareynayay dadkii guryahooda la galay gawaadhidooda la qaatay hantidoodii la qaatay akoonnadoodii la xanibay in ay soo gudbiyaan FBI-du kiiskii oo xidhan bisha 9keeda June ayay ahayd indictment lagu sameeyo oo la qabto oo dadkii loo baahnaa markaas la judge gareeyo hadduu ilaahay yiraahdo saas ay ahayd sheekadii dib iska bedeshay 9 bisha ayay ku eekayd 9 bisha ayay ku eekayd oo ay ahayd FBI-du inay soo gudbiyaan dadka la judge gareynayo magacyadooda oo waliba dadka judge gareyn maaha in dadka subaxaas surgeon warranka loo diro la soo qabqabto sida ay January 20 markay ahayd saacadu 5 subaxnimo ay sameeyeen FBI-du sida aad xusuusataan maalintii ahayd bisha January 20keedii 5 subaxnimo waxaa ka horeeyay arrin kale oo ina dadka Soomaaliyeed ayna ogeyn oo dhacday January 18 dhacday baa jirtay oo 3 guri oo kamid ah guryaha dadka Soomaaliyeed la galay
oo iyadu way ka horeyso subaxii businessyada la galay ee FBI ay soo galeen businessyada way ka horeysay waxay ahayd January 18 ayaa waxaa jirtay 3 guri oo Soomaaliya oo la galay 3daas guri oo si qaflada lagu galay lagana soo saaray hanti badan iyo dahab badan ka bacdi subaxii January ay ahayd 20 intiina xusuusata waxay laanta dambi baarista ee wadanka Mareykanka FBI ay search warrant u soo goosteen dhammaan businessyadii iyo shakhsiyaadkii lagu tuhmayay in ay lacagtaani dhaceen waxa la xanibay xafiisyo badan isla maalintaas waxa la xanibay oo hool la wada geliyay dhammaan akoonnada ay dadkaasi lahaayeen laga bilaabo maalintaas January 20 2022 ilaa iyo waqtiga aynu ku jirno waxa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo dhan ka socday ugaarsi lagu hayay dhalinyaro Soomaaliyeed iyo dad waaweyn oo Soomaaliyeed oo waalidiin ah kaas oo xitaa gawaaridii hantidii lala wareegay ee la qabtay waxay hanti aad u badan waxa jira kaashash badan iyo dahabyo badan oo guryaha laga soo saaray wax ilaa iyo maalintaas waxa socday in wadooyinka magaalada gobolka Minnesota iyo baarkinlaydada guryahaba laga qaadayay baabuur aad iyo aad u qaali ah oo dadkaas ay iibsadeen Soomaaliduna waa iswada ogtahay marka waxay ahayd shalay khamiistii oo bisha June ay ahayd 9 ayaa waxa laanta dambi baarida ee wadanka Mareykanka FBI laga sugayay indictment oo ah inay soo qabtaan la soo xiro ka bacdina dambigii lagu soo oogo awal businessyada ahayd dambigii lagu soo oogo dadkii lagu soo oogo ayay ahayd marka waxay FBI ay dalbadeen wax la yiraahdo supersede wax la yiraahdo oo ah in waqti loogu daro haddaba maxaa keenay in laanta dambi baarida ee wadanka Mareykanka FBI ay supersede-kaasi ay dalbato oo ah in waqti loogu daro ma waxa weeyaan marka macnaha dadka Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota degan xogtaani waa xog aad iyo aad u muhiim ah wax aad ka yaabi doontaan oo kale ayaan idin soo wadaa macnaha ay FBI u dalbadeen in supersede la sameeyo marka waxay ahayd in la sameeyo waqti loogu daro waqti daristaas ay FBI supersede-ka ay FBI codsatay maxay tahay macnaheedu ma aha in kiiskii dad laga dhimayo wax kale oo yaab leh baa soo baxay wax kale oo yaab leh ayaa soo baxay oo ah in dad ziyaada oo kale kiiskii lagu soo kordhinayo dad ziyaada oo kale in kiiskii lagu soo kordhinayo oo dad kale oo idan filayni ay ku jiraan run ahaantii maanta laba qof oo aad iyo aad uga naxay iyaguna xaqiiqada dhabta markaynu ka wada hadalno aan ku arkin xitaa wax ma garanaysaa dadka qaarkii waxay ay sameynayeen firiqdii baabuurta cusbay arkaa iyo show offkii dad aanan ku arkin laba qof oo ka mida dadkaasi oonan ku arkin ayaa waxay ku jiraan dadkan cusub ee lagu soo daray taasoo waxyaab la ila noqotay waliba qof dadkaas ka mid ah nin aanan ka filayn ayay noqotay lacag 12 milyan ah marka waa wax aad iyo aad loola yaabo waa yaana yaab idinku noqonin haddii aad aragtaan dad kale oo Soomaaliyeed oo badan oo ku jira marka supersede-kaas ay FBI du dalbadeen dawladday ka codsadeen dawladda markay ka codsadeen waxay yiraahdeen waqti aan naloo ku daro waxaanu haynaa kiiskii wuxuu sii galay dad kale oo faraha la sii galo oo iyaguna malaayiin dhacay haddaba sheeko kalena way jirtaa oo iyadana ah sidee ayuu yahay xaalka dadka qaarkood Soomaalida keeskan intii hore ee lagu hayay ee businessyada lahayd isma oga qaarkoodna waa is ogyihiin waxaa jirtay dad businessyo ka wada dhaxeeyeen oo businesskan ku wada jiray waa la kala baxay dad badan oo awal isku ogaadeen inay asxaab ahaayeen dad badan oo awal isku ogaadeen inay walaalo ahaayeen dad badan oo awal isku ogaadeen inay wax wada dhacayeen ama businesskani ka wada dhaxeeyay dadkii waxay isku wada noqdeen qof buu against ku noqday oo ku marxaati furay waxaa jira dad badan oo dhiil qaatay oo maanta halkaan idinka sheegi karin businessyo badan oo wada garanayseen dadkii goobtaas ku wada jiray maanta bariga hore dad iyaga iskugu jecla maanta iyaga iskugu nacay waxaa dhacday in dadkii qaarkii waliba dhalinyaro u badnaa ama dad waaweyn baa noqdaan ay qaateen dhiilkaas oo inay sheegaan wixii jiray inay sheegaan marka xaaladaasna way soo korodhay dad badan baa dhiil qaatay dadkaas badan ee dhiilka qaatayna
waxa ay dhiilka u qaateen maaha qof banaanka ay ka soo jaajuusayeen ama maaha qof yani business kale leeyahay wax ka sheegayaan dhiilka ay qaateen macnihiisu waxa weeye businesskii ay ku jireen iyagu ay ku lahaayeen sheerka ay lacagta la bacanleynayeen in ay business eedii noocii ay sameeyeen ay ku oodaan mid kale oo kula jiray oo isagu laga yaabo inuu magaca kula qornaa waddanka Mareykanka Soomaalida Minnesota waddanka Mareykanka way ka dhacdaa arrimaha noocaana way dhacaan laakiin marka arrinta noocaan oo kala timaado waxa imaanaya wax la yiraahdo nin walba nafta nabiga ummadda qof waliba tiisa ayuu badbaadsanaya run ahaantii maraba halkan in aan ka magacaabo marabo laakiin sida aawada ogtihiin badidiinu aad la wada socotaan intiina hadda daawanaysa qaarkood ay og yihiin dadkii keeska ku wada jiray oo waliba xog meesha wada haystay meelaha qaarkood wada haystay maanta mid waliba kii kale ee meesha la haystay ayuu ku marxaati furaya uu leeyahay anigu waxaan ma samayn jirin qofkana waxaan samayn jiray tiraba hadda dadka baxsaday ee aan lahaynin ee dhaqaaqay waa laba wiil oo Soomaaliya ayaa wadanka ka baxay sida aad la wada socotaan waa la wada garanaya yaxay waa bari'aad baan ku salaamaya in adeerkii Carabi kale yalla laan dheera banaan dagay dal laba wiil ayaa hadda baxsaday oo wadanka ka baxay labadaas wiil maraba inaan magacooda halkaan idinka sheego laakiin way soo bixin doonaan waana imaan doontaa waa laba wiil labadaba aad aan u garanayo laba wiil oo ka midana waxay ku jiraan xiyagana xabsiga midna 32 milyan baa loo qabsaday midna 31 millions waa labadii wiil iyagoo waliba baasaboorradoodii haysta dalbaday baasaboorrada ee la soo qabtay marka arrin kale oo aad u muhiim ah ayaa iyana jirta oo dadka Soomaaliyeed aan raba caaw inaan la wadaago dad ayaa waxa la wareystay shaqaalihiisii anigu indhahayga waxaan saaray gabadh aniga miciin soo biday iyadoo ordasa iyo timi lawyer raadinasay wixii aan cilmi ku dhaamay aan kaxeeyay una geeyay lawyer gabadhaas waxay ka shaqeynaysay goob ka mid ah goobihii raashinka lagu qaybinayay waxay u shaqeynaysay qolo kale oo Soomaaliyeed gabadhaasi waxay ku jirtay section 8 sanad iyo 6 bilood ayay ka shaqeynaysay meesha markay 6 bilood shaqeynaysay forgerkeedii bay ka sashay waxay qaadatay guri gabadhaas iyada business kuma qornayn waxa dhacday in la ay qaadanaysay weegii waxay shaqeynaysay 3 bari waad garan kartaan qofku intuu mushaahar u helayo 3 bari markay weegii shaqeyso bishii marbay 4 week noqonaysaa marna 5 week bay noqonaysaa mar 4 week bay noqonaysaa oo marna 5 week bay noqonaysaa xisaabta marka la isku geeyo imisa ayay gabadhaasi mushaahar u qaadan kartaa intii aqliga leh oo dhami waad fahmi kartaa wadankan qofku intuu mushaahar u qaato waa la kala ogyahay waa la dareemaya waa la garan karaa gabadhaasi qofkii u shaqeynaysay marka laga dhaafo personal jaga marka laga dhaafo seelada marka laga dhaafo cash aapka marka intaas oo dhan laga reebo bay jaga gabadhaasi ay 3 bari qaadanaysay wuxuu ahaa $5,500 waa 3 bari $5,500 okay bishii lacag $20,000 mushaaharo يعني waxaan macquul ahayn oo yani aqliga ka weyn ay ahayd gabadhii intaas kaliya lagu ma haysane gabadha meesha laga soo raacay waxay ahayd mushaharada ziyaadada 3 bari oo yani 5,500 iyo 5,000 ay qaadanayso wax aad loola yaabo ayay ahayd halkaas linkigaas laga soo raacay iyo gurigii oo 8 bilood gudihiis ku qaadatay oo ay forgerkeedii kansashay waxa jiray marka gabadhii markii halka laga soo raacay waxaa la soo galay akoonkeedii gabadhii cash aapkeedii iyo seeladeedii waxaa ku soo dhacay lacag غير العقلية oo ay u soo diraysay qoftan businesska ay u shaqeynaysay iyo qof kale ay u soo dirayeen
oo qeyr alcaqli ah kusoo dhacday akoonkeedii sheekadii waxay gaadhay gabadhii waa la qabsaday waxaa la yidhi soo fadhiiso dhiil gabadhi waa ii timi iyadoo ordasa waxay tiri waa la haystaa xaaladdu waa xun tahay lawyer baan u geeyey lawyerkii markii aan u geeyey waa la wada fadhiistay maxaa lagu yidhi baa la yidhi gabadhi waxay tiri aniga qoladii waa lala hadlay wax dembi oo loo haysto waxba yaraatee ma jirto lacagtan ama geftigaa loo siiyey ama wax kalaa loo siiyey mushaaradan way qaadanaysay jas ha nala shaqayso sida wax u dhaceen ilaan macquul ma aha in 5,500 lagu siiyo 3 days bay jeege macquul ma aha weygaas noo sheeg gabadhii waxaa la wax dambi lagu qabsanaya ma jirto wax lagula hadlayaa ma jirto jas dhiil qaado haddii kale dembigan waa ku jirtaa lacagtan waxaad ku samaysay keen gabadhii lawyerkii aan u geeyey nin aad u fiican buu hadduu yani waa nin aad ugu kalsoonahay hadduu ahaan lahaa nintuuga wuxuu odhan lahaa lacagta keen wuuna iska dhaqaajin lahaa wuxuu odhan lahaa waa gelaya hadhowna wuxuu odhan lahaa waa lagu xukumay wuxuu yidhi sheekada masaas ahaa annagaa isku noqonana gabadhii wuu la fadhiistay wuxuu yidhi gabadhay dhegeyso hooyaa tahay dhibaato kulama raba anigu lacagta waa kaa qaadan karaa kiiskana waa geli karaa laakiin wuxuu dhahay keeskani waa kees aada u xun dembi laguma haysto sidii wax u jireen sheeg lawyerkii bay u gadbaxday waxay tiri lacagtan 5,500 marka lay qoro baydheyga aan soo sarifo waxaan qaadanayay 2,500 3,000 kaashkana waxaan celinayay qofka aan u shaqeynaya marka see ugu celinaysay mar seelaan ugu diray iyadana wuu soo dhacasay qofkan kalena muxuu yahay qofkan kalena wuxuu yahay isagana lacag uu soo diri jiray waa ka saari jiray waa u diri jiray xawaaladee ka diri jirtay xawaaladii bay sheegtay halkaasaan ka diri jiray gabadhii intii lawyerkii aan u geeyay sida ay u sheegtay oo dhan ayay wixii ugu sharaxday wax tallaabo ay ka qaadayso ma jirto waxay caddaysay in lacagtani ay bayday ayna ahayn ziyaadada ay tahay inay markay soo saarto ay gabadhan siinaysay gabadha markaa saan idiin sheegay guri section 8 ay ku jirta section 8 keedii waxaa ka kansalay oo yidhi kansal oo laabta u garaacay qofkan ay u shaqaynaysay oo yacni rabayda isaga goolkiisoo dhammi ahaa yacni haddii ay section 8kii ku jiri lahayd ma aysan dhacdeen in yacni 5,500 3 days bay jeeg loo qoro waxaa la odhan lahaa waa lagaa kansal bay tiri gurigan qaado saan samee yacni qasigaasoo dhan wuxuu ahaa inay every week 3,000 oo kaash ay u soo celiso gabadhaas markaas waxay ahayd adigu sarifle caalami ay ahayd oo waxsaa ugu wareegaya gabadhii taladii lawyerkii qaadatay dowladdii waa u sheegtay waxay tiri aniga guri baan qaatay hooyaan ahay ciyaal baan korsadaa qofkaas aan u shaqaynayay wuxuu yidhi intaasaan ku siinayaa anigu luuqadna ma aqaan qof loo tarjumo ayaan ahay waana runtii qof loo tarjumo ayaan ahay baa tiri luuqad ma aqaano hooyaan ahay single mother baan ahay markaa anigu lacagta markaan soo saaro dee 2,500 goosa 3 beri lacag badan bay tahay bay tiri lacag aad u badan bishii baan waxaan sameynayay bay tiri markaa $10,000 3,000 inaan celiyo anaaba abaan ugu hayay tiri gabadhaas aan u shaqaynayay yaa siin jirta iyada weligaa transfer ma u samaysaa la yidhi wax oo yani ama cash up ama seelo aad ugu dirtay yaas bay tiri way keentay okay baa leeyahay qofkan labaad ee intaasoo lacaga kuu soo diray isagana noo sheeg isagiina way sharaxday oo waxay tiri qofkani wuxuu ahaa qof aan u dirayay oo magacayga isticmaalayay markaa soomaaliya xaaladda halkaasay maraysaa insha allah bidnillaahi kariim FBI waxay codsadeen indaymankii keenaa la yidhi supersite bay codsadeen oo ah in wakti loogu daro waktigii waa loogu daray wakti ku daristaas FBI-da loogu daray macnaheedu ma aha in dad la dhimayo ee dad kale oo ziyaada oo Soomaaliya oo idan ka filaynin ayaa meesha soo galay sidaan maanta idin sheegay 2 nin oo aad iyo aad aan xushmay aan ka filaynin run ahaantii raggaasi yani ma idin oran kara maanta rag waxay ahaayeen yani baabuur 100 kuna qaatay rag firiqlay rag surwaalkoodu iska gaaban yahay oo iska dharkooda caadiga gashan oo sidoodii hore ahaayeen laakiin lacag badan bay sameeyeen marka dad badan oo idan awal ka filayn ayaa ku jiri doona insha Allah waqtigaas supersite ay codsadeen ee FBI-du xadidka intuu leeyahay ma 90 days ba ma 60 days ba waan idin soo ogaanaya waan idin la wadaagi doonaa Soomaaliya waxa kale oo jirta in qof dad badan oo dadka kamid ah isla shaqeynaya hadda saan hore idinku sheegay iyaga gudahoodii isku marxaati fureen
sheekadii waxay maraysaa maanta ibixi oo ibixi nin walba nafta nebiga ummadda dad badan oo shalay aad ogeydeen maraba maanta inaan halkaan idinka sheego waa ila fahmi kartaan ood shalay ogeydeen oo saaxiibba ahaa oo yani isdhunkanayay oo wax wada cunayay maanta oo isku wada markhaati fure run ahaantii waa arrin aad iyo aad u yara calool xun oo sababtoo dad walaalo oo Soomaaliyeed oo shalay khalad iska qaban waayay iyagoo arkay khalad ku jira iska qaban waayay oran waayay waryaarahe aynu saan u shaqaysano waxaan dhibaato inooga imanaysa in maanta iyaga gudahoodii ay isku markhaati furaan oo iyaga gudahoodii ay markhaati isku noqdaan waa wax aad iyo aad looga xumaado oo waana calool xumo run ahaantii dadkuna waxyaalahaas noocaas waxa weeyaan maanta hadda aad u wartay ina xabsi ka badbaadid oo qofkii kale Soomaaliyeed ee walaalka ahaa ee shalay aad business ka wada lahaydeen aad isagii maanta dabcan inaad ku ridid wallahi waa ayaan daro waxay ahayd waajibku shalay markaad dhooqadan wada qasanayseen nimcaad ku jirteen lacag baad sameeyseen waxaan inaan wada xadaan waa ku tala gasheen shalay inaad isqabataan bay ahayd laakiin inaad maanta idinka gudihiinni isku markhaati furtaan oo qola dhiil qaadato qoladii kale kusii markhaati furto wax aad iyo aad looga xumaado shacabka Soomaaliyeed oo arrintaas magaalada ka jirta kayskii qoladii FBI du superside-kaasi codsadeen waqti in loogu daray codsadeen codsagaasina waa loo ogolaaday oo dawladdu way u ogolaatay in ay ku darsadaan ma 90 days ayay noqon doontaa ma 60 days ayay noqon doontaa laakiin waxaa hubaal Soomaaliya dhagihiina si fiican u fura January 2022 saacadu markay ahayd 5 subaxnimo ayaa meel walba ay FBI-da iyo laamaha ammaanka oo ciidamada ay xafiis kasta warqad yalow ku xidhan qoryo la hor istaag intiina xusuusata January 18 habeenkii arooska dahabka la riixayay ee dahabka la soo galiyay Minneapolis waxay ahayd January 15 bay ahayd waawdogeen Soomaaliya January 15 ayay ahayd habeenkii arooska la soo riixayay January 18 shantii subaxnimo saddex guri oo Soomaaliya oo aad muhiim ugu ahaa dawladda FBI aad muhiim ugu ahaa saddexda gurina aad la wada garanayo aniguna halkan aan idinka sheegin oo aan rabay inaan magacooda xuso saddex guri ayaa subaxaas dalaq la yiri waxa laga qaatay lacag lama filaynin lacag aad u badan oo kaasha iyo dahabkii oo dhan waa la wada gurtay marka Soomaaliya waa ka ta kale waa wada ogtihiin maanta ma jiro baabuurti oo dhan dadkii waa laga wada gurtay baabuurti oo dhan wax yaala ma jirto mid baarkin laga qaado mid wada qofka laga dajiyo kulli waa isku soo dhamaatay dahabye iyo waxaasna hadalkooda daa marka insha Allah bidnillah ka akoonadiina sidii ay ugu xaniban yihiin waxa weeyaan waxa dhacday gabadha Keera la yiraahdo oo iyaduna organization kala ahayd in loo ogolaaday oo dawladda ka guuleysatay okay ogolaashahaas Keero dad Soomaaliya ayaa hadda seefta u lisanaya seeftay hadda saas u lisanaya waxay leeyihiin ma la fura ma la ogolaado Soomaaliya dhagaha furto dhagaha si fiican ii dhageysta side kasta oo qof Soomaaliyeed horta Keero qandaraas ma siinayso contract ma siinayso dadkii iyada kamid ahaa ee meesheeda ku jiray ee lagu dhagay dad 37 qof gaaraya oo meesha Keera ku jiray ayaa la qabsaday dadkaas halgama yaabo horta organizationadoodii iyo nan barafadkoodii oo dhan hawada laga saaro lagama yaabo in ay contract siiso dadka kale ee u lisanaya ee Soomaaliyeed mid ogaada sheekadu sidii hore ma noqonayso sheekada inay sidii hore noqoto habeenkii xalay ahaa ee tagay sheekadu sidii hore ma noqonayso sayr kasta oo cunto lagu qaybinayo oo qof Soomaaliyeed yiraahdo cuntaan ku qaybinaya waxaad ku tala gashaa in lagula joogo dawladdu ayna ka maqleen shalay ayaa qof walaalkeen uu bohol ku dhacay maantana adigu isku sii tuur waa cawaanimo dadka hadaba waxaan kala hadda rabaa inaan kaga faa'iideysto halkan dadka Soomaaliyeed
بالله عليكم شير هودا قلينا بسنس هايسكو درسانينا وحبا هايسكو إيمانينا دين هكلا قادنينا وحبا الشير هكو نقونينا سببتو أميشينيسا labadii shalay sheerka ku wada jiray maanta iyaga waxay yihiin labada dad isku nacab labadii shalay wax wada dhacayay maanta iyaga waxay yihiin labada isdacweynaya dadkii malaayiinka wada cunay ee bartaan ku jiray ee bartaan wada galay ayaa maanta iyaga isku maqan wallaahi oo billaahi oo tallaahi Soomaaliya kelmad beena inaan idin sheegin waan naxay markaan arkay dad aan shalay isku ogaa iyagoo halkaa iyo halkaa iska dhunkanaya dhexdooda aan taagnaa iyagoo walaalo garbaha is haysta iyagoo xaragoonayo baabuur qurux badan wata iyagii inay maanta lool waa ku soo qabanaya walaal gacalis ballan weeyaa messengerka ha iga soo dheh waan ku soo qabanaya oo waa ku soo qabanaya iyagii shalay wada haystay oon ogaa iyagii shalay wada xaragoonayay maanta iyagii isku markhaati furay maxaa keenay in labada wiil ee Soomaaliyeed ee wadanka ka baxsaday fakaday ay fakadaan kuwii ay la shaqaysanayeen ayaa farta ku fiiqay sababtoo ah wiilashaasi waxay ogaayeen in hadiiba ay nimankii iyaga dad ugu xigay ay wax u sameynayeen ay farta ku fiiqeen inaan meesha fadhiyo labada wiilba waa yaaceen waa nabad galeen meel ay joogaan caawa la garanaayo laakiin in wadanka ka baxeen ayaa xaqiiqo ah markaa Soomaaliyeey anigu waxaan idin leeyahay haddaad dhooqa walaaqanaysaan haddaad ilaahay ka fogaanaysaan wax dhacasaan haddaad adigu naftaadii haligaysid adigu dhooqada walaaqo adigu wax ka fogow dhac adigu naftaadii halaag laakiin mid kale inta aad soo kaxaysataan oo aad iswalaalsataan oo wax isku darsataan oo wax wada dhacdaan idinku og inaad wax wada dhacasaan baritana farta isku fiiqina hebel baa dhiil qaatay dhagahaygii bay buuxisay heblaaya dhiil qaatay dhagahaygii buuxis wallaahi billaahi tallaahi Soomaaliya wallaahi billaahi tallaahi waxaan indhahayga soo saar waxaan aad iyo aad uga yaabo waxaan aad iyo sawirada qaar marka arkay waa qaadan waayo qofkan ku mudciye waa marka ogaaday labada wiil ee wadanka ka cararay waxay la cararay kuwii ay dad ugu dhawaayeen ceeshka ay kala goosanayeen ayaa farta ku fiiqay marka wallaahi waa ayaan dara aad iyo aad weyn meesha fasahaad baa ka dhacay lacagtaas raashinku waxay noo keentay fasahaad hooyooyinkii Soomaaliyeed ee xalaal cunka ahaa luulay waa ku soo qabanaya walaal hayga tagi hooyooyinkii Soomaaliyeed ee xalaal cunka ahaa ee guryahooda joogay ee caruurtooda korsanayay oo magacyadii inta laga qorto Soomaaliya ilaahay baa idinku dhaarshay magacyadii inta laga qorto oo caruurtooda raashin lagu qaadanaya magacyadooda ayaa hadhowna iyagii la caayay oo la dhahay ha naartii doqonta ahayd bartii bay fadhidaayo dahabkii barigii la guursaday ay xidhnayd bay wali xiran tahay ya gabdhihii bay dahabkii nacsiiyeen gaarigii barigii ma garanaysaa taxi taanka soo dhacay 3 sano ka hor kii bay wali wadataa maxaa ku rarayta doqonta taa doqonta ciyaalkeeda korsanaysa ee dambi ka cararasoy lacagta aad ku faanaysid waa ciyaalkeedii baad ku qaadatay magacii gurigii baad ugu timi magacii baad ka qoratay adoo baray adoo in adeereyle way kala kacday $1 oo kaashan umaadan keen iska dhaaf waxaad u keentay iska dhaafe dumarka qaarkood waxay dumarka kale Soomaaliyeed ku caynayeen gaarigii waxay wadataa 3 sano ka hor ay wadatay iyo dahabkii barigii markii la guursaday intay bahal dhaadheer ilaa madaxa soo sulay ilaa luga dahabkii barigii la guursaday ayay heblaay wadataa wax aad iyo aad looga yaabo يعني هو يبني ما أول فيري تصالح يرو كلام عاود تصيا وهذا مهم الصومالية والله يا بدهم تعال هو يلاس لقوا عينه يجاهل لماذا أو لقوا عينه يبدو لماذا إلا لا يهدهب كي واحد وضعته سمن تعور عركي نبرجي نيكو كورسدي قاري وقت قاسي وضعته إلا عينه يوم هو يلاس لو ما ترجم اللغة بيكو هذا شيء تن وحبيل كريسنسه ee wax dhacsa waa loo tarjumaya taas meesha ku tarsadaya waxyaalaha aan la yaabay ka mid ah tan guriga joogta ee dahabkeedii ninkeedii bal hore u galay
afar sano ka hor markii la guursanayay gaariga lagu caayay 3 sano ka hor ay iibsatay waa hooyo luuqada si fiican u taqaana waa hooyo aan loo tarjumin waa hooyo berlibaaxada laakiin waa hooyo ka doorbida intay xabsi iyo dambi gali lahayd iyo karaay in ay doonato lacagtaasi in ay inta yare ilaahay siiyey ciyaalkeeda ku masruufato dambi dowladeedna aan lagu hala gelin federal prison wax lagu ordo ma aha xoolo dowladeed wax la cuno ma aha kiiskaani kiis lagu ordo ma aha Soomaaliya halaaga meeshan ka dhacay wax yama taa ku caayasa ee ku aflagaadaynaysa wallaahi oo billaahi oo tallaahi waa loo tarjumaya qaarkood marka la siinayo marka waraaqaha biilka loo buuxinayo bacda qashinka waraaqaha ku soo guri jireen habeen barkii la guri jireen jaag baa soo dhacay ma bishan waxba ma imaano 800 ama 900 kun baa madaxa ay furaan kan waran marka waxa weeyaa maxay markaas kuwaas sameynayaan hooyooyinka noocaas ama aabayaasha noocaas dhibaatada wada yani wax dhacaya waxay rabaan inay easy ku soo galiyaan dambi oo ku ayaan dahabkeedii hore gaarigeedii hore guriga kiisa shaqeedkii degantahay ay nacsiyaan oo ay ku dhiirato adigoo luuqadii yaqaanaba waa tane hiblaayo oo waxaan sameynaysaa kugu caaysa adna doono adna iige dalaq iyadii baa cadaab ku jirto hooyo kale Soomaaliyeed baa cadaab sii horseed ayaan dar ku weyn oo Soomaali ku dhacday ma jirto arinta kale ka sii yaab badan waxay tahay Soomaaliya wiilkii maalintii ugu dambeysay la qabtay wadaadka ahaa ciyaal buu macallin u ahaa waalidiin Soomaaliyeed ayaa intay caruurtoodii kaxeeyeen u geeyo yiri macallin oo wax noo bar garku halkaas uu joogo wadaad buu ahaa Mareykanku muusan dhalanin ciyaalkii Mareykan ku dhashay ee uu diinta baraya macallinka u ahaa markay maanta arkaan wadaadkii Soomaaliyeed macallinkoodii garku halkaas joogo oo loo haysto inuu ciyaal raashin lacag lagu aamino gaalo u dhibtay isagoo muslim u dhacay maxay oranayaan maxay kaga dayanayaan ii sheeg maxay kaga dayanayaan waxay kaga dayanayaan yani talaabo xun geela baa la yiri awrkiisu durduriyaa la yiri aarankiisa maxaad moodtay talaabo xun ayay kaga dayanayaan marka sidaa darteed waxaan rabaa inaan soo qabto walaashay luul oo iga codsatay inaan soo qabto isuga luul luulay ma ku hayo sug ku aawe luul messengerka ha iga soo dhex okay luulay messengerka ha iga soo dhex okay igu soo celi hal mar igu soo celi ama sug hooyo Soomaaliyeed baan rabaa inaan soo qabto luul baan hal mar igu soo celi luulay okay luul messengerka ha iga soo dheh please saaxiib kuma nihiin that's why baan ku soo qaban karin moogta sug okay luul Ahmed luul Ahmed okay hello luul hello السلام عليكم وعليكم السلام والله waa ku maqlayaa ما شاء الله hortoreyso waxaan rabaa inaan ku dhaho waa mahadsan tahay haye Soomaalidu waxa uu qabatid wanaaga walaaltinimada sharafta ma aragtay waxa soo dhan hortoreyso waan kugu salaamay ma sha Allah luul ku soco waxaan rabay inaan ka hadlo xogaa yar aan kala hadlo anaga Soomaaliyan nahay Soomaali waa Soomaali haye Afrikaan waa Afrikaan haye meeshii yar oo wax naga soo galaayo
oo ma aragtay xoogaa yar nalka siinaya wax nafaqo naga soo galayso ama benefit ha ahaato ama non profit ha ahaato waxaan boqolkiiba boqol Soomaalida aan uga digayaa haddii aad aragtid qof walaalkaa ah oo qalad meenayo ha ku taageerin hana ku raacin waxaas waa wax qalad ah Soomaali waa Soomaali waxaa la yiri baddaas weyn waxaa qurmiyay hal malaay marka waxaan rabaa Soomaali inay isbaacdo in meel walba ka aqoonsanaado waddankeeni inuu dhismo garanaysaa dhibaatada wadamada shisheeye ugu haysto ama Yurub ha ahaato ama Canada ha ahaato ama Mareykan ha ahaato ama Australia ha ahaato meesha rabta xataa waddankeena Soomaaliya ha ahaato waxaa rafaadsan hooyo Soomaaliya ama aabo Soomaaliya ama caruur marka waxa aad sheegaysid oo dhan wallahi waan kugu raacsanahay waxaan rabnaa inaan ma aragtay Soomaali waa mid qofkii qaldan arko inuu u dhaho walaalo waxaanitid waa wax kugu qaldan waxan baad sameynaysaa sharciga ha ku xadgudbin marka ma aragtay qofku waxa la yiri qofka walaalka ah haduu uu sabibaxanayo inaad qabataa oo ma aragtay uu adiga wixii adiga ka maqan waxa la yiri fikradda adiga ka maqan walaalka ay ku jirtaa dadkan hadda home care-rada iyo ma aragtay day care-rada iyo furanayo dad badan baa hore ku soo dheedelay marka aanka waana la fiirinaya marka xataa let's say adoo fiican oo clean ah marka tagtid oo siriga aad degantahay aad rabto inaad day care iyo wax ka furato Soomaaliya tahay waa lagu fiirinaya marka waxaan dhihi lahay Soomaalida qofka walaalka ah adiga hadii adiga aad xun tahay qofka walaalka ah bari ka maalin ilmaha anaka aan dhalnay wixii ay dhaleen sharcigooda iyo din like nafsadooda ha uga dheelin wixii qalad aad sameynaysid jooji ilaahay sidoo anaka uuna faray muslimaan nahay waa sida anaka dhan aan wada ognahay gaal iyo muslim ma aha in ma aragtay la boobo qofka markuu wadankiisa uu ku keeno waa inaad ma aragtay respect asiisid oo you do what adiga ku quseeyo haddii de wax ka badan aad rabto oo hami weyn uu ku galo oo aad rabto inaad wax kale aad raacdid walaalaha Soomaalida ha garaafani ما شاء الله والله أنا community Soomaalida Minnesota Ohio Seattle waxaan ku leenahay magac weyn marka magaceena yaanan lagu dheelin ama cunto ha noqoto ama waxay rabta ha noqoto ama guri ha noqoto ama anything ay noqoto anaka markaan dhahno population keena Soomaalida xataa dadka wadanka lahay waan ka awood weynahay haddii ay noqoto caawimaad qof la caawinayo waa is wada caawinayna ilaa ay Afrika meel walba dadka caawina laakiin markii wax yar oo ma aragtay il naxariis ah gaaladan Ilaahay noo caawiyay oo noo furo qof walaalka ah oo rabo biri kamaal inuu meel sare u gaaro adiga ha hor istaagin adiga ha noqonin bad leader always be a good leader $2 $1 million is nothing yes but like magaca Soomaalinimada dheelinaha no matter what happens Somali waa Somali ama ha ahaado homeless ama ha ahaado millionaire wuxuu raba ha ahaado Somali waa Somali dadkan ajnabka ah waa aragtay Mareykan waxa ku taala 52 states aboo ma aragtay qof la dhahayo hey adiga Wisconsin ka imaatay ani Minnesota ka imaatay keena ma soo gali kartid ma jirto runta ma faad ma waa tala wanaagsan walaal ha marka insha Allah ma ku dheeraanayo lifekaada iska sii wado Soomaali waxaan Ilaahay uga baryayaa inay wan noqdo insha Allah in wada jeclahay igan raali ahaado والله thank you Lula bye insha Allah hay'un macaan salaam alaykum ugu dambeyn Soomaaliya insha Allah live waan ka baxayaa oo waqtigu aad ugu yareeyay waxaan rabaa inaan idin sheego waa intaas
superseed kaasi waa 90 days 60 days wuxuu doonu noqon karaa dad badan oo Soomaaliyeed يعني يا marka qaarkood aad sheekadooda aragtis oranaysa dadkani yani maxay la nool yihiin dadkan ma dad waalan ba maxaa ka sii dad badan baa ku oranay waa la iska daayay waa la tuuray no qiiq Soomaali uu ka kacaya Soomaali community Minnesota taariikh xun ka dhacaysa qiiq uu ka kacaya wax la daayana ma jirto 90 days 60 days bay noqon kartaa insha Allah kulligeen Ilaahay khayr ha inooga wada dhigo Ilaahayna dambigeena waalidkeen ba dhaafo in Ilaahay dhibaatada ay naga wada qabto laakiin waa wax aad looga wada xumaada laba qof oo shalay Soomaaliya oo ku wada jiray maad inay maanta iyagii snitches ku noqdaan oo iyagii maanta gudahoodii ay mid dhiil qaato kii kale oo ku marxaati furo oo Ilaahay baa waxa sameynaya waxa aad iyo aad looga xumaado ta kale hadda gabadhan loo soo celiyay keera qofkii ay kontaraatka siiso programkani waa furan yahay programkani ma xidmin 20,000 baad bishii sameyn kartaa waa lagu ogol yahay 30,000 inaad bishii sameyso waa lagu ogol yahay waa marka dad badan ay waxaysatid 20,000 oo xalaal ah hadii lagu bishii sameey oo dambi aanu kaaga imaanaynin oo lagu ogol yahay walaashay ama walaalkayow maxaad ku falaysaa 40,000 oo dollar oo lagu xidhay bal ii sheeg adaan ku dhibay Soomaaligu waxaan maqli jiray dhan shawaalan bali dhargaana ka daran haddii Soomaaligu wax dhadhamiyo wuxuu rabaa intuu maanta helay afrijibaarkeed inuu si aado war hadiiba 20,000 aad ka sameynayso faa'iido bishii oo shaqaale kale Soomaaliyeed ama ajaanib ah bay garanaysid oo community-gaaga u shaqeynayso caruur community-gaaga wax siinaysid oo lagu yiri 20,000 faa'iid nan barafad baa lagu yiri faa'iido ma laha baa lagu yiri meeshan in aad raadisid 60,000 ama 100,000 waa khalad waana iimaan la'aan hunguri wax ka weyn la galiyana waa dilaaca Soomaaliya qofkii programkaasi la siiyo ee loo soo fureelay ka shaqeyso 20,000 iyo 15,000 bishii waa lagu ogri xagee laga helaa 20,000 mushaara bishii ninka idin dhibay jaamiciga digriga masterka iyo PhD-ga haysta ee UFM ta jooga 20,000 bishii ma qaato adigiyo Soomaaliya qaxootinimo ku ninkii halkan ku dhashay 20,000 bishii ma qaato jeega hadii lagu 20,000 faa'iid ama 15,000 faa'iid xagee u socota inta ka badan aad baan dhamaantiin idin salaamaya xaq Allahina waafajiyo salaam calaykum